عليكم أصحابتي دقالقة من والبا جوجتان حلي كستا يقور والبا يوقت والبا ينيتاي ومسكينتي ريدي حمد قرن دعاو مركان هلكا soo fadhiisto wuxuu galnaysidaa waxaan safar ku tagay dhawaan degmada Horbogays oo ku taala gobolka Sanaag degmada waxaan ku soo arkay waxyaabo aad u la yaab leh aroos hidiyo dhaqan leh xiriir laga xiray horta intaanan barnaamijka gudagelin waxaan u hambalyeeyaa walaashay Bashaaro iyo saygeeda Jaamac oo arooska quruxda badan aan la kulanay bahda la kuwaad biitu sayloon oo iyaguna deedanka qaabay iyaguna goobta geeyay oo iyagana aad ugu mahad celinay inkasta aan ugu sikadiisa goobta ku tagay waxaan la soo kulmay xeeriyihii dhaqankeeno ahaa sidoo kale xeeriyaha waxa aad ugu sii faahfaahisay maamo aad qaaliya oo goobta kula kulmay dhalinyaro badan baa waxaysan garanaynin xeeriyuhu waxay kala ahaayeen iyo dhaqankeena sidoo ahaa xeeriyaha qayba waxa lagu ridi jiray jabdan qayba waxa lagu tilmaami jiray gabadh waxa soo dhan inagu ma naqaano haddaba waxa soo dhan waxaad kaga soo bogan doontaan fiidiyoga ila soo daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni dhaqan iyo dhigaal oo alaaba in la socodsiiso anigoo Xamdi Cabdullaahi Xamdi Qaran maanta waxaan ku suganahay mid kamid ah degmooyinka hoostaga magaalada Xudun dhanka soolka ah waa degmada Horbogays sidaan aad u jeedaan waxa ka dhacaya aroos halkan waxa yaala xeeriyihii waxaana la joogtaa Farduus Maxamed Nuur waa mid kamid ah maamooyinka qaban qaabinayay oo aan si kaliya ula kulmay xeeriyahan waqti hore horta igu dambeysay inaan arko ama aan la kulmo sidoo kale aroos ah waxeeriya aad u qurux badan la qurux badnaysiiyay bal ku soo dhawo Farduus marka hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بنكو سلامة يا آد نواد محسنتها يا خيارده وحوي هل كانوا حفلة دو أي كذا عيسى مدنا أي مروه حرية هدية دقن كسيدة يهان شرتي هذا وحلاقة يا با إن بدنا دول كقاركينا لقى استعمالين لكن الحمد لله حوله واستعمالنا سيهان شرتي هذا كوفة فهي حمد وحوي مرت مقع حيرو معني سمحيه حيرو معنيه سوحويه حيرو هدية دقنك سida ay hadda dadka waaweeyelka ama waaweynka ay la socdaan waxa waaye xeero dhaqankeedu waxa weeye xeero ama gabadh loo xiray ama maxaan ku iraahdaa hidiyada dhaqanka ba hadda marka xeero waa kuwan xeeriyihii waxa weeye xeeriyuhu waxay ka kooban yihiin inta ay ka kooban awal konton bay ka koobnaan jireen oo gabdhaha loo xiri jiray waqtiyadii hore way sheegeen wax badan ahaan jireen waqtiyadii hore wax badan maxaa isbedelay oo aad isleedahay dhaqankii ama xeeriyihii dib u riday waxa isbedelay hadda oo isbedel weyn ku keenay adigu hadda waxaad moodaa inay bini'aadanku sida u badan ay leeyihiin waaba ka ilbaxnayo waxoo kuma fallo laakiin anigu aad baan u taageeraa hadda maxaan ku radaa indhaha laftirkooda qurux bay u tahay waxa weeye hadda xeeriyaha waqtiyadii hore haddaan ka dhex galo waxa jiray inanta in farda lagu galbin jiray in maxaan sheegay xeeriyo waxyaabo badan ay dhaqankeenu ahaa sida aqal Soomaaligii hadda halkan aynu ku jirno waa aqal daara fardihiina de kama muuqdaan oo waa meeshu waa magaalo dhaqankii waxaynu ka haysanaa xeeriyahan maxaad isleedahay baa xeeriyahan raacsiisan oo dhaqankii xeeriyahan raacsiisan oo dhaqankii horta fardihii hadda ma ay joogaan mana jiraanba waxaynu ka sii hidii dhaqankii waxaynu kala sii soconaa xeeriyahan iyo de maxaan ku sheegayay qalabkan kale oo ka dambeeyo oo la yiraahdo camal jabdan oo kale oo kan ah diishan kan waxa la yiraahdaa jabdan baa la yiraahdaa laakiin dhaqankeenii hore waxa lagu soo qaadi jiray xeero wax la yiraahdo oo qori ka samaysan iyo fandhaal baa lagu soo ridi jiray iminka se waxa kan waxa hadda diishan oo kale waxaad moodaa inay xeeriyaha kale ka yar tahay xeeriyaha way ka yarto diishan iyada waa tii caanaha oo caanaha lagu soo qaaday iyada waa diishi caanaha tan oo kale waa uunsigii tan waxa la dhahaa sabiibti waaye halkan waxa ku jira xalwadii oo khaas ah halkan waxa ku jira sidoo kale macmacaan kan oo iyana waa macmacaan kan waxa weeye waa hilibkii kaas waa hilibkii ka oo waxa la yiraahdaa muqmad kaas waa isna waa hilib kana sidoo kale waa hilib kaas isna waxa weeye waa hilib isna waa muqmad kana sidoo kale xeerada marka aan ku siiyo ku sifaafay laftigooda waxa jira bariyii hore xeeriya wala xujeyn jiray xujay ahaan jireen sidan hadda qaabkan aynu u qaadanay intaanu dhigno loo kala guddoonto labada islaamada sadaha ama ahayn xeerada labada qabiil baa gabadha soo galbin jiray gabadha qabiilkeeda soo qaadi jiray xeerada waa la dhigi jiray gabadho laba gabdhood baa loo soo sharaxi jiray oo xeeriyaha celin jiray ragga gabadha guursaday baa farahooda laga garaaci jiray iyo qabiilada kale laakiin gabadha qabiilkeeda mugnuuc ka ahaan jiray xujada xeerada marka la xujada xariga halkan baa laga furi jiray
insha Allah intana laga furi jiray halkana laga fura xariga waxa weeye xarigu hadii uu maxaan ku raahdaa meel kale laga gooyo oo rag qaar wadayaal hadaa inaga dhex galo alaabtan horta xiriyadan way diyaarsan yihiin oo waa la habeeyay xarigu wuxuu ku jiraa taashkan oo dhan baa laga gudaha taashkaas halkaas la qaban xarigu waka xarigu hadii xarigaas weeye xariga halkaas laga baaraya halkaas ku jiraan mid ma dhigi karo laakiin halkaas laga baaraya ka hadad ka weydo waka sasada wareejinaysa hadda xarigan hadii si qaldan loo jaro xariga ciqaabtiisu ahaan ragga qaar baa waxay ku soo qaadan jireen faraha dhexdooda sakiin markay faruhu go'aano xisaab dambe ay noqoto habeenkii baana la furi jiray xeerada xariga hadii la gooyo marka waxa dhici jirtay xaal gole jooga ragga laga qaad jiray ama marka xariga uu saa inanku u gooyo inantu way kici jirtay reerkooda goobta ka kacaysa maxaad isleedahay yani dhaqankaas yani waa loo baabiyeeyo aad u sababaynaysa dhaqanka waxaan u sababaynayaa kulba dhalinyarta waqtigan joogta baa dhaqanka doon ku keentay oo isleedahay hadda dhaqankii xeeriyihii waa kuwan jabdankii caanihii adduunkii oo dhan waa kan ma isleedahay dhaqankii dib uu soo noqon doonaa dhaqankii insha Allah uu soo fiicnaanaya hadda talagalay ahaan anigu waxaan kula talin lahaa maamooyinka iyo gabdhaha hadda guurdoonka ah ee rabay inay guursadaanba inay gabdhuhuna ku soo siman waayeeladooda sida gabadhan oo kale ku dayasho mudan maxaan ku yiraahdaa ay loogu xidho nooca kan oo dhaqankeena uu soo noolaado marka xiriyaha la sameeyo heeso ay hooyooyinku ama islaamuhu ay ku qaadaan maxaad ka xasuusataa heesaha heesihii anigu waxba kama xasuusto horta oo ma laga yaabaa inaad soo gaadhin waqtiga ma soo gaadhin laakiin waayeelku waa hayaano hadda waxaan jeclaan lahaa inay dib inoogu habeeyaan laakiin adigu waxa tahay gabadh jecel dhaqankii inay soo noolayso desan maanta warkay waxaan xiriyaada xidhiyaada kala habeynaya diyaarinaya insha Allah waan jeclahay anigu dhaqankii inuu soo noolaado maamooyinkuna xiriyaa xidhaan gabdhuhuna ku waaridka ku soo saaray aad u sheegaysaa bulshooyinka ku daawanaysa oo dhaqankeenii aad moodidinaysa sanadadan ay ka dhaqaaqeen waxaan u sheegayaa inay dhaqankeeni lagu soo laabto in maxaan ku yiraahdaa hidiya dhaqankii aad loo nooleeyo in maxaan ku yiraahdaa hidiya dhaqankii qaabkii uu ahaa haday geel tahay oo geel la maali jiray hadii xoolaha la dhiqi jiray hadii xiriyaha la xidhi jiray hadii fardaha la dhiqi jiray hadii aqalada baadiyaha oo waaweyn la sameyn jiray oo ilxid loo sameyn jiray ilxid waxa la yiraahdaa halkan baa laga kala gooyayo qaybtana ma sha Allah ayaa la galaa oo la hagaajiya xeeradii iyo fandaalkii waa la sameyn karaa hadda in la sameeyo hangoolkii iyo gudintii maxaan ku yiraahdaa dabcan anigu aad baan jeclahay hidiya dhaqanka dambe sidanad xiriyahan u habaysay aad sameeysid meel hidiya dhaqana maadaama halkan aan ku suganahay tahay degmada Orbogays oo aad moodino dhaqankii wali ku sii dambeeyo insha Allah waan ku rajaynahay inaan sameeyo maxaan ku radaa gole hidiya dhaqan oo aan nooc walba qarabka keeno aad baad mahadsantahay daawadayaal inta waxaynu ku soo afmeereynaa barnaamijkeeni dhaqan iyo dhigaal qaybtan waa qaybtii xeeraha waxaanu sii gudbi doonaa arooska sida loo dhiso ama loo galbiyo waqti dhow waxaanu guda gali doonaa aroosadii loo hagaajinayo durbaankii habka gaafkii hore loo qabto sida xeeriyaha loo kala wareejisto hadda kaliya waxaanu la kulanay xeerihii oo kaliya Firdaws aad baad mahadsantahay daawadayaal intaynu barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo waxaan jeclahay inaad fiidiyoga dhamaysatay oo aad soo daawatay wixii quruxdii iyo xeerihii iyo intiiba inkastoo noo suurtoobi weyday inaan arooskii duubno oo waqti dambe ay iska ahayd meeshuna ay deegaano badan iyo wax badan lahayn haddana waxaan ku faraxsanahay intaan kala kulannay oo xeeriyaha ah de maxaa kaloo sugaysaan waa xamdi qaran hor fadhida channelkeedii yara like share commentiga intaba waa inaad ku caawisaan waxay idin soo gudbinaysaa sheekooyin aad u macaan oo aad qurux badan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa kaameramanka mar walba saa kaamarada ula yurura oo fiidiyoyadan idin soo gudbiya waxaan leeyahay wardina ilaahay adiga gacanta ku barakeeyo habeen wanaagsan